Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kooraskeena Adobe Illustrator CC 2015. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qaabka loo design gareeyo waxa loo yaqaano wedding invitation card, ama af Soomaaliyan haddaan ku sheego waxa loo yaqaano kaarka loo yaqaano warqadda casuumaadda arooska. Sida horta ka muuqato designkan diyaarsan ee mock-up-ka aan geliyey waa designka aan rabo maanta inaan sameyno ee aan rabno casharkeena inaan ku qaadano. Marka si loo sameeyo invitation wedding cardkan, si loo sameeyo invitationkan waxaan la geysaa Illustrator-ka waa kan sida ka muuqato designkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood. Qaybta koowaad oo loo yaqaano cover-ka kore iyo qaybta hoose ah warqadda invitationka information ku qoran yahay. Si aan u sameyno waxaan la tagtaa file, kadib waxaan tagtaa new marka ku dhufato halkan waxaan ku qoraynaa wedding invitation. Artboard-ka aan isticmaalayna waa 2. Size-ka aan ka dhigayna waxaa waaye width-ka inji unit waxaan qaadana inji 3.5 width ah iyo height-ka waa 5. Rotation-ka istaagan ka dhigayna kadib waxaan dhaynaa okay marka dhahdo waxaa malaysaa size-keena kala fogeeyay waa heer aan saxo. Halkan ku dhufo kadib halkan ku dhufo waxaad tagtaa arrange artboard space-ka kan yare 0.5. kadib design-ka ayaan bilaabeynaa. Shape-ka waxaan sameynaynaa background hoose oo black ah, rectangle soo dooranay. Halkan markaan ku diyaariso kadib color-ka saxda stroke horta nande kadib waxaa siisaa color-ka aan u rabno waa madowgan khafiifka ah. midka kale kan ka koobiyey intaa markaan sameyno labadooda noo xir marka saan shaqada ugu qabsano object lock. Shaqada waxaan ka bilaabeynaa haddaan fiirino design-ka. Shaqada ugu horeysa waxaan ka bilaabeynaa wax loo yaqaano qaybtan kore. Marka qaybtan waxay ka kooban tahay waxaa loo yaqaano qaybtan hoose iyo oo ka muuqda sharaxaadan waxaan kasoo degsaday internet-ka. sidoo kale flower-radan dhinaca labadan gees yaala ayagana waxaan kasoo dejiyay internet-ka. Marka waa ka helaysaa internet-ka haddaad kasoo degsato. Sidoo kale midkaan waxaan kasoo dejiyay internet-ka, laakiin inta kale waa design aan sameynay. Saan shaqada u bilaawno marka qaybtan ayaan design gareynaynaa. Marka ugu horeyso halkan waxaan ku qoraynaa waxa loo yaqaano wedding invitation. Marka 2 line ka dhig kadib halkan noo gey size-ka noo badi kadib color-kooda waxaa siinaa color-na waxaa qaadanayna midkaan. marka waxaan rabaa farta ay ku qorneyd inaan siiyo. farta waxaa loo yaqaanaa Violix Galaxy ayaa loo yaqaanaa fartaan. sida ka muuqato waa far loogu talagalay badanaa aroosyada. intaa markaan sameyno qaybtan hoose waxaan ku qoraynaa kasoo qaybgalkaada waa inuu muhiim. kasoo qaybgalkaaga waa inuu muhiim. fartaan waan ka bedelaynaa marka fartaan kuma sii daynayno. waxaan qaadanaynaa far loo yaqaano tw cmt taa fartaasaan qaadanaynaa kadib size-ka noo yaree halkaan noo gey kadib waxaa ka dhigtaa halkaan align center-ka color-ka white. waxaan rabaa shape yar halkaan inaan ku sawiro. halkaan noo soo sawir shape yar. shape-ka marka qaab dhuuban aan ka dhigno noo dooro halkaan. halkaan marka anchor point-da gudaha ku dhufo kadib gudaha u jiid labada dhinac soo ugu soo koobo. kadib color waxaan siisaa
loo yaqaano kalarkan oo kale si okay waxay soo dhaway okay qaybta hoose marka waxaan soo qaadanaynaa marka shape-kan oo aan internet ka soo degsanay google-ka shape-kan noo soo qaad marka qaybta hoose noo dhig qaybta hoose okay qaybta hore waan dhamaynay waxaan u dhigay marka qaybtan kale inaan shaqadan bilaawno qaybtan ugu horeysa ayayna waxaan ka bilaabaynaa flower-radii labada dhinac noo soo dhig marka flower-rada halkan nooga soo qaad two flower halkan okay flower-rada hagaaji marka midkaan oo kale kiiskaasaan dhigaysaa oo hagaajinaysaa marka muhiim ah flower-ka noocan oo kale inaad soo degsato laakiin flower loogu talagalay waxaa jira wedding oo kale inaad soo raadsato internet-ka waa ka helaysaa kanne halkan okay okay kadib halka hore waxaa ku qoraynaa marka meher wacan meher wacan fartan qaadanayna waa fartii haddaad aan soo dooranay adoo isticmaalna eyedropper kadib farta noo door size-keeda naga soo yaray maadaama ay dheer tahay ilaa 30 oo kale geey weli 30 oo badan tahay 25 okay meher wacan markaa qorto waxaa ku xojinaynaa qaybaha hoose oo ah shape-kii qofkii labada qof sawirkooda inaan soo gelin halkan waxaa isticmaalaysaa ellipse tool halkan noogu sawir laba shape kalarka stroke 2-gi kalarkana si halkana white ka dhig ama halkana white ka dhig kadib asigaan copy ka sameynayna marka si midka labaad aan u sameeyo okay labada noo door sorry labada noo door noo xir halkan usig centerka oo kale geey kadib mid walba waxaan rabaa image-ka sawirada inaan soo geliyo midkaan door draw inside ku dhufo file kadib place markaa dhahdo sawirkaan soo qaadanayna marka sawirka ninka raggaan halkaas geeninaa waa kana wiilkaan oo kale soo qaado inuu yahay kadib kusii daa halkan okay halkan gabadhii iyadana sidoo kale draw inside file waxaad tagtaa place kadib sawirkeeda gabadha iyadana sidoo kale sambalkan soo qaado kusii daa halkan noo yaree kii hore uu yaraa laakiin kan sawirka qorahee yaree xoogaa okay intaa markaan sameyno waxaan rabnaa meelihii magacyada lagu qorayo kale shape rectangle noo door halkaas intaas camal noo samee zoom soo leh kana copy ka samee marka geeska kale okay labadooda saan u saxno noo door kadib alignment-igooda sax okay kadib waxaan rabaa mid kasta inaan soo xoodiyo noo door geeskan labadan gees keliyaan rabaa inaan soo qabto okay kan kale sidoo kale noo door labadan gees shift adoo haya kan kale click ku dheh kadib soo dhinacan ka soo xoodi okay kadib waxaan rabaa magacyadooda inaan ku qoro halkan qof walba magaciisa oo kale kasoo qaad wiilka oo kale waxaa loo yaqaanaa Osman okay design-ka hadda waxaan qabanay
labada qof sawiradooda iyo magacyadooda halkan soo geliyo. waxaan oo dhimin waxay tahay marka qeybaha hoose inaan ku darno taariikhda ay dhacayso baalkii xafladda arooska iyo baarka lawlaka oo qaybtii carabiga ducada inaan ku darno. qaybtan hoose waxaan tegaynaa inaan ku qorno aroosku xilli uu dhacayo, inuu dhacayo September waxa uu dhacaa 20 sanadkan 2020. okay, marka maalinta ay ku beegan tahay oo kale waxaan rabaa inaan ka dhigo badanaa aroosada Soomaalida waxa uu dhacaa Jimco. okay, Jimco oo kale halkaas dushaas noo dhigeedana. halkan waxaan rabaa laba line inaan geliyo, anaa isticmaalaya linekaas shift boldiga. okay, halkan noo dhig marka. waxaa malaysaa inuu isku dhawaaday, wax yar aan spaceka u bixiyo halkan. okay, copy kale ka samee midkaan oo kale, midkaan copy ka samee, halkaan dhigasane. kalarkaan isticmaalayana waxaan qaataa kalarkaan oo kale. okay, Jimcaha oo kale wide aan ka dhigaynaa. waxaa noo dhiman marka arooska xilligaas oo dhacaa, waxaa noo dhiman goobta uu ka dhacayo oo kale. waxaan rabaa intaan soo qaato, noo soo qaad copy, waxyar kor u qaad, teerkaas uu ka dhacaa arooska. qaybta hoose waxaan ku qoraynaa ducadii ee nabiga oo ahaad baaraka allahu laka wa baarak caleyk wajamac baynakuma fil khayr. waxyar qaybtan aan rabaa inaan qurxiyo. iyo sidoo kale waxaa ka maqan waxyar qaybtan soo qaad oo anta ah oo labada qof u dhexeysa magacyadooda kale. iyo kale camal ah. okay, qaybta ducada marka inta carabi laguma qoran karo. marka waxaan sameynayna marka inaan tadwiin soo kacsano programka loo yaqaano. halkan tag tadwiin noo qor, noo fur marka halkan aan kusoo qorayna ducada. okay, tadwiinku wuuna soo kacay. marka ducadan soo qortay halkan baas ku dhahnaa marka baarak allahu laka wa baarak caleyk wa jamaca baynakuma fi khayr. ducadaas rabaa inaan soo qaato, qaybtan hoosaan rabaa inaan soo qaato sababtoo hore aad kusoo sharxay tadwiinka qaabka loo isticmaalo. control C noo soo koobiyey, kadib illustrator-ka tag, text noo dooro, qaybtan hoosaan rabaa inaan dhigno ducada. kadib control V paste ku dhamaa, size-ka noo yaree, farta xoogaa rabaa inaan ka bedelo. faro badan cadew iguma jiraan, laakiin faro qurxoon macquulaan raadina. okay, farta kadib kalarka white aan ka dhigo, kadib quotation rabaa inaan ka hormariyo labada dhinac. okay, quotationka waa dhameeyey. waxaa fiican laakiin qaybta inaan hoos mariyo ducada ee koreyso. qaybta naga soo jiid, qaybta ducada halkaan noo dhig, kan halkaan noo gey. okay, wax noo dhiman malahan filayaa, shaqada ugu badan waa qabanay. waxaan rabaa qaybta yar hoose inaan soo qaado, qaybtan oo ka hadlaysa xoogaa waxyaaba oo wax camal oo kale. hoose noo dhig, size-keeda noo yaree, halkaan noo dhig. okay, waxaan filayaa labada dhinac inaan sidii loogu baahnaa aan u keenay. marka cashirkeena maanta insha allahu tacaala halkaas ayaan maanta kusoo gabagabeyneynaa. هذا ما سنتهين. هذا بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.